xiisadda Villa Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed ayaa ka sii dartay kadib tallaabooyin dhinacyadan ay qaadeen saacadihii la soo dhaafay. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qorsheynaysa in go'doomin iyo cunaqabateyn la saaro Koonfur Galbeed isla markaana lagu cadaadiyo madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen inuu isdhiibo una hoggaansamo awaamiirta Villa Soomaaliya. Halka lafta gareen dhankiisa uu qorsheynayo in marka uu ku laabto magaalada Baydhabo uu diido dastuurkii dhawaan uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lana safta mucaaradka iyo in uu ku dhawaaqo in maamulkiisa doorasho uu aaday musharaxiintana ay isa soo diiwaangeliyaan. xiisaddu waxaa sare u qaaday saacadii la soo dhaafay kadib markii dowladda federaalka ay si degdeg ah Muqdisho ugu yeertay taliyaasha militariga, booliska iyo nabad sugidda ee jooga magaalada Baydhabo. Talaabadan ayaana u muuqata in dowladdu ay qorshe ciidan ka damacsan tahay magaalada Baydhabo. Dhanka kale, maalmihii saacadii la soo dhaafay waxa ay cid kasta soo bandhigtay awooddiisa ciidan. Dowladda gudaha Koonfur Galbeed waxay ka abaabushay maleeshiyaad la dagaalama Cabdicasiis lafta gareen iyadoo loo xil saaray wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Eelay. Lama oga xiisadda madaxweyne Xasan Sheekh iyo lafta gareen halka ay ku dhammaan doonto. Hase ahaatee, xiisaddu waxay ku soo aadaysaa iyadoo mucaaradka iyo Villa Soomaaliya dhankoodana xiisad u dhaxayso isla markaana mucaaradka ay sugayaan oo kaliya in bisha Ramadaan laga baxo iyaga oo qorsheynaya in shirweyne ballaaran ay isugu yimaadaan si go'aan ay uga qaataan Villa Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bedelay dastuurkii dalka isagoo sidoo kale helay muddo kororsi 1 sano ah taasoo mucaaradka ay aad u diidan yihiin. Haddaba xiisaddan Koonfur Galbeed iyo Villa Soomaaliya halkan ayaad kala socon doontaan.